culayska ugu badan ee shirka ka soo baxay u saameeyay dawladda cidda waxa ugu badan laga rabay ee geesaha loogu tumiyay dawladda kulay annagu waxaan ognahay dadku inay walaalihiin annagu waxaan ognahay gobolku inuu nabad yahay telefoonadu waa badan yihiin meelo badan baa la inaga hadlayaa laakiin ugu dambeysay waxa maqlayseen waxa wixii ka soo baxay oo xitaa dawladda lagu eedeynay aniga mas'uulkii gobolka ugu sareeya maantii kamaana qayb galin laakiin ragga shirayay ee meesha joogay ee xukuumadda ugu jiray dareebay ku aftirsanay laakiin naqaya عاقل اسماعيل علي دوله oo maanta iftiimiyay nabadii waxay ahayd nabadu waa geed dheer oo loo baahan yahay la fulo waxaan u baahanahay nabadgelyada waxa ugu weyn ee gobolkani ku naaloonaya weeyaan habeenadan ugu dambeysay waxa maqlayseen waxa wixii ka soo baxay oo xitaa dawladda lagu eedeynay aniga mas'uulkii gobolka ugu sareeya maantii kamaana qayb galin laakiin ragga shirayay ee meesha joogay ee xukuumadda ugu jiray dareebay ku aftirsanay horta arrintan dawladda ugu kuma lahayn reer baa shiray reer baa go'aanada soo saaray waxa weeye culayska ugu badan ee shirka ka soo baxay u saameeyay dawladda cidda waxa ugu badan laga rabay ee geesaha loogu tumiyay dawladda kulay annagu waxaan ognahay dadku inay walaalihiin annagu waxaan ognahay gobolku inuu nabad yahay telefoonadu waa badan yihiin meelo badan baa la inaga hadlayaa laakiin hadalladii yara maalintii dawladda waxaan war dhinac kasta ha nafisay hal la tahay laakiin waxaan rajaynayaa inay halka ku istaagto inaan cid dambe waxba soo saarin wax dhacayna ma jiro nin maanta oran kara 4 saacadood wax ku dhaceen 2 saacadood wax ku dhaceen 10 cisho wax ku dhaceen ma jirto adduunyada markaa waxa ugu weyn ee ugu muhiimsan waa wada noolaanshaha ummadda reer gobolka Sanaag waxaan ugu baaqaynaa waxa ugu weyn aad haystaan waa nabad waxa ugu weyn ee qof kasta oo bilaadan oo Ilaahay abuuray haysta waa nabad innaga Soomaaliland waxa moodaa in meelo badan laga yimid laakiin Ilaahay baan baryaynaa cadawga faraha badan la inagu dhex jira ee siyaabo badan noola macaamilaya in aawna ina saameyn inta marka laga tago goor gaaban hadalkeed gaaban madashan waxa ugu weyn in maanta annaga dardaaranka iyagu yahay baaqan nabadgelyada ee uqaash soo saareen baaqan nabadgelyada ee la isku raacay inaan maanta meel la qori haystay ma kaanu joogo oo aawna diyaar u ahay in qori rido laakiin qorigii ugu weyn afku ahaa in walba rido dhameystay marka halka ay noogu eekaato aniguna gobolka waxaan ku ogahay inaan yaabjiyo waxaan marxaati ka ahaa waan fadhiyay waan shirkidoomiyay inuu nin kamid ah dadka gobolka u dhashay soo dacwooday kii uu ka soo dacwooday inaan u yeeray markuu soo fariistay uu abtigay la dacwii maayay adigaan hoos ku faray waa halkay raga marka taasina waa sharafta gobolkan leeyahay ka dawlad ahaan arrimaha socda maanta mandaqada ku soo kordhay waa taa aad arkaysaane laba walaalaha la isku soo faynay hadalkii qof si kale loo dhigay meelo badanna waa la inaga soo wajahay waxaan ugu mahadnaqayaa odayaasha cuqaasha iyo salaadiintan gobolka wada shaqeyn 6 habeen ugu dambeeyay nabadda waxaan kala wada shaqeynay 3 habeen waan kala seexanaa saan ka mid u hadlayno nin kasta wuxuu ku baaqayaa nabad nin colaad ku baaqayo waay marka aad iyo aad u sharfayeen taasina wada ilaalinayna walaaleyna xilkan u kala wareejinayna waynu ducaynaynaa insha Allah ninka tagayna waxa leenahay meel ka sareysa ka maanta qabsadayna waxa laga doonayaa seelacdi aad sheegaysid qurxinaysid inaad qurxiso haajo seelac dadkaygu waa dad gobowda xadaarada dad dib badan maaha dad dawladaha eriyada maaha laakiin waa dad jecel in la dhageysto inta anigu arkay waa dad jecel in la dhageysto oo la dhaxkaro maxamuudna waxa laga rabaa dadkan dhageysiguna badi waad hogaamin intii Ilaahay ku qoray barina de maalinta taadi noqoto annaga laftarkii kursiga lama dhalane waan ku xignaa raggan oo de waa maalin boqof baa istabta taagan marka hadalkan idinku dheereeyay guuliyo gobonnimaan idin ogahay waxaan rajaynayaa inaad labada ninba u ducaysaan oo aad tiraahaan nin walba Ilaahay halka doonayso khayr qaba muraadkaaga macsiyo lahayn nin kastana halka uu socday meel ka sareysa inuu